Jilaaga Rahul Dev ayaa ugu mahad celinaya dadka sida wanaagsan u garab istaagay geerida ku timid walaalkiis Mukul Dev. Jilaaga Rahul Dev ayaa si kal iyo laab ah ugu mahad celiyay cid kasta oo ka tacsiyadaysay geerida ku timid walaalkii Mukul Dev. Jilaagan ayaa geeriyooday 24-kii bishan May isaga oo 54 jir ah. Xushmad lagu wadaagay baraha bulshada. Rahul ayaa boggiisa Instagram-ka la wadaagay xushmad taabanaysa, isaga oo soo dhigay sawir madow iyo caddaan ah oo Mukul ah oo uu weheliyo fariin uu ugu mahad celinayo dhammaan dadkii soo diray kalgacayl iyo salaamo naxariis leh xilligan adag ee tacsida. Qoraalkiisa ayaa u qornaa, waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadkii kalgacalka iyo rabitaanka naxariista leh ee u muujiyay walaalkay Mukul. Waxaan leeyahay dhammaantiin mahadsanidin. Mukul xirfadiisa waxa ay soo martay doorar caan ah oo uu ku lahaa Bollywoodka iyo shaleemada gobolka, halkaas looga mahad celiyey shaashada aflaanta ee uu ka soo muuqday. Waxaa lagu arkay doorar badan filimaanta. Marka laga reebo xirfadiisa jiliin, Mukul Dev ayaa sidoo kale loo aqoonsaday inuu wax ka qoray filimo badan. Warka ku saabsan geeridii Mukul Dev ayaa murugo kala kulmeen bahda filimada, iyadoo dad badan oo caan ah ay baraha bulshada soo geliyeen si ay u xusaan Mukul. Xidigaha sida Salman Khan iyo qaar kaloo badan ayaa wadaagay fariimo qiiro leh oo lagu xasuusanayo kartida iyo naxariista uu lahaa Mukul. Dhanka Salman Khan waxa uu soo qoray, "Miss you my dear brother Mukul Dev, rest in peace." Aktarkan geeriyooday waa aktar aflaantii hore aan ka ahaa, laakiin hadda waxa uu ka soo muuqday musalsalo badan. Waad ku mahadsantahay la socodkaga, halkana waa Deeqsame.